shucuurta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabia ayaa laga akhrisan karaa sida ay u taageereen go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku gaartay in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jarto dowladda Kenya iyadoo go'aankaasina uu yahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga iyo kan dawliga sidaasi darteedna ay dowladda Soomaaliya iyadoo mas'uuliyad ballaaran ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka ay qaadatay go'aankaasi haddaba go'aankaasi rasmiga oo ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa lagu muujiyay in dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka jooga dalka Kenya ay dib ugu soo laabtaan dalka hooyo iyadoo isla markaana lagu amray kuwa dowladda Kenya ee ka jooga Soomaaliya ee isaga baxaan dalka muddo 7 maalmood laga bilaabo 15 bishan December 2020 haddaba siyaasadda dowladda Soomaaliya ee ku aadan xiriirka ay la leedahay caalamka ayaa loo arkaa in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka safka hore kaga jira qadarinta iyo dhowrista qawaaniinta lagu qeexay xeerarka caalamiga ee u dhaxeeya dowladaha adduunka haddaba Soomaalida ku nool dalka Sacuudi Arabia oo taageero weyn u fidiyay go'aanka dowladda Soomaaliya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa magacayga waa Mawlid Cabdiraxmaan Maxamed kana tirsan ganacsatada Sacuudi Arabiya qaasatan Jidda runaantii waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa go'aanka geesinimada leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ee qaadatay oo ku saabsan faragelinta wadanka Soomaaliya ee ku hayso dalka Kenya runaantii qof ogol ma lahan in wadanka dhulkiisa mise gurigiisa loo maamulo markii faragelin lagu sameeyay intaas oo kale la mid tahay walaalayaal Soomaalida meel walba ay joogto waxaana deeqo waa Soomaalinimada walaalayaal waxaan leenahay Soomaalinimada ayaana deeqdo aan ka soo horjeesano gumeysiga iyo faragelinta dawladdeena waxaan uga baahan tahay in aan taageerno magacaygu waa Xuseen Baano Imaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Saudi Arabia qaasatan magaaladiisa Jidda anigoo ku hadlayo magaca jaaliyadda sharafta leh waxaan xaggan aan ka cadeynaynaa inaan ku taageersanahay dowladda Soomaaliyeed ee ku qaadatay go'aanka inay xiriirka u jarto wadanka Kenya oo fahmi waayay darisnimada iyo taariikhda dheeraad ee soo dhamartay iyo dulqaadkii badnaa loo dulqaatay maadaama dowladda Soomaaliyeed ay xiriirka u jartay xaq ayay u leedahay inay xiriirka u jari karto qof alaalo qofkii maswadan alaalo wadankii ku soo xadgudba jiritaanka iyo isku xirnaanshaha shacabka iyo dhul Soomaaliyeed oo lagu soo xadgudba waxay dowladda xaq u leedahay inay go'aanka goosan karto waana ku taageersantahay waana ku mahadsantahay madaxdeena sharafta leh siday u dooreen amaanadii iyo dhaartii ay u dhaarteen wadanka ay u soo baxeen ay cadowga ay u tuseen mise ay u tusayaan mar walbo il adag waana ku mahadsan yihiin anaga jaaliyadda Soomaaliyeed haddaan dibadda ku noolna aad iyo aad ayaan u taageersanahay anigoo ah Ciise Buraale ahna manduubka safaaradda Soomaaliya u qaabilsan mandiqa sharqiga ee dalkan Sacuudi Arabiya waxaan u hambalyeeyahaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood go'aankii ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya calaaqaadka ay ugu jartay dowladda Kenya waxaan ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinayaa in dhulkooda iyo dadkooda iyo baddooduba ay muhiim yihiin cid kasta oo isku dayda in ay xuduudda Soomaaliya ku soo xadgudubtana tilaabo sharci laga qaado gacan birana lagu qabto madaxweynaheenu wuxuu ka turjumay rabitaanka aan rabno oon jecelnahay dhulkayna dadkayna iyo siyaadadeena iyo madax bannaanineedana ummadda Soomaaliyeed taageerada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabia oo faahfaahsan waxaan idinku soo gudbin doonaa